مالي وصاحب aad baan ku salaamaya adiga asxaabtaadaba Canada runtii markaan nimid waxyaabaha ugu cajiibsanaa ee aan arkay waxa kamid ahaa horta aaminaadda Canada laga aaminsan yahay iyo xaqiiqada meesha loogu imanayo oo runtii farqi aad u weyn u dhaxeeyo xaqiiqatan markaynu dalkii joogno Canada waxaynu u naqaanaa wadan G7 ka kamid ah wadamada hodanka sida qof kastoo inaga mid aaminsan yahay waxaynu aaminsanahay in wadan qani ah oo qofku nolol fiican oo si fudud uga samayn karo aad tagayso se markaan nimid waxaanu yimiday wadan asxaabta qaar ay 2 sano bila camal haayeen oo ilaa dalkaagii baad bila camal ku ahaataabe waxa weeyaan rag 2 sano bila camal ha oo yaani kiradii noloshooda mar qaar loo qaadanayo runtii waxa ay shay aad u cajiiba ilaa imkana asxaabtii dalka joogtay aan ka dhaadhicin karin meesha waxa weeyaan nolosha ka jirta inay noocaad hadda oo waxa weeyaan cashuuraha iyo waxa weeyaan economic crisis ka adduunka ka jira uu saameeyay waxay muuqataa nolosha inay ka sii adkaanayso wixii laga filanayay waxyaabaha si aadka u cajiibka ee aan isweydiin jiray markaan dalka joogina maxayba dalalka Afrika ama dalkeenuba uu noqday dal saaw baaba wadamadan ka dhigay nolosha noocan ee quruxda badan loo sameeyay jawaabta ay badan su'aashaas aan badan jawaabteeda ayaan intaan xaggan ibidnayti hore dhan aan raadinay jawaabteeda shayga ii soo baxay anaadku la cajiibsay ula taxajibay waxay ahayd waxaanu shaqo u naqaano iyo waxa adduunka runtii shaqo looga yaqaano aan runtii shaqo isku lahayn waxaan imiday nolol gabadha dumarka shaqada ay qaban karayso aadan adigoo nin boqol qaban karay waayo nolol waxa weeyaan gabadhu halgamayso waxa weeyaan maalintii 10 saacadood 8 saacadood ay qabanayso shaqo aan weligeed dalka lagu qaban waxa laga yaabaa shaqooyinka dalkeena ugu adag inay ka mid yihiin kuuliga shaqooyinka xamaalka laakiin shaqooyinka marka halkan loo eego waxay noqonayaan shaqooyinka dream jobska lagu riyoodo oo shaqo fudud ka wadankii qofka halkan jooga ama wadamadan jooga markuu yaani 10 saacadood uu nolosha saaw sacrifice gareeyo u dadaalo dawladdii halkan nolosheedii buu qayb ka yahay dadka bulshadoodii buu kabaya qofka noloshiisa wax taraya dawladdiina cashuur fiican buu sameeyaa dawladduna kaliya cashuurta laga qaaday bulshada ay u seef garanaysaa taasi waa ta samaysay farqiga inta leega u dhaxeeya waxa weeyaan labada nolol marka runtii waxyaabaha cajiibka ee yaala halkan iyo nolosheena u dhaxaysa waxaan runtii aad la soo koobi karin la yaabana intaan dalkan joogay nin shaqaynaya oo markuu bisho ay dhamaato aan shilin haysan yanin waxa ila yaabana rag iyo dumar aan labisanayn baa dhar hudaya qaba oo mid aan ka yaabay adduunka waaga Afrika joogay waxaan moodi jiray dadku markay Canada tagaan adduunka iyo caalamka in la raaxaysan doono channel la gelin doono qurux badan la xiran doono ragiba hudaya baa xirtay ragina waa falfal xumaan gabdhiina waa ka dareeyay xukuumadaas ila yaabka badan iyo barafaan dhamaanahay